ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Kheyro oo daahfuray shirweynaha Galmudug guddiga amniga ee golaha shacabka oo ka hadlay doorka golaha la xisaabtanka hay'adaha ammaanka madaxweynihii hore ee Zimbabwe Roberto Mugabe oo geeriyooday maxkamadda caalamiga ICJ oo 2 bil dib u dhigtay dhageysiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyro oo dhagax dhigay dhismayaal lagu kordhinayo jaamacadda ummadda qaybteeda Cabudwaaq intaasina waxa ayeen warka ugu door karoon markani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyro ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo ay ka qayb galayaan erga matalaysa dhammaan reer Galmudug ra'iisul wasaaraha oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha uga mahadceliyay dadaalkii dheeraa oo ay u galeen isu keenida bulshada Galmudug ayaa sheegay in shirkani uu gogol xaar u yahay dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeynaysa danaha reer Galmudug kana qayb qaadanaysa horumarinta guud ahaaneed ee dalka mudane Xasan Cali Kheyro ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Galmudug ahlu sunna dhammaan bulshada reer Galmudug ciidamada ammaanka sugaya iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in geedi socodka dhismaha Galmudug dhameys ah la soo gaarsiiyo heerka uu maanta marayo wax uuna shirka u rajeeyay in uu guul ku dhamaado shirkani caawa aan daahfurayno waa albaabkii laga galayay dowladnimada Galmudug si loo heshiisiyo oo maamul la wada leeyahay loo dhiso waa in aan danta gaarka ah meel dhigno aan danta guud la shaqeyno waa in aan ka gurno fikirka khilaafka ku dhisan dhaqanka colaadda ku dhisan iyo maslaxadda qabyaalada ku dhisan ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyro shirweynaha ayaa inta uu socday waxa ay reer Galmudug uga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo u horseeda in maamulka ay dhisanayaan uu noqdo maamul u hogaamiya wadada horumarka xiriir wanaaga la leh dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyro ayaa bishii Juun ee sanadkani wuxuu deegaanada Galmudug ka bilaabay dadaal gundhigiisu ahaa ka guulgaaridda geedi socodka qorshaha reer Galmudug oo ay ku dhisanayaan dowlad goboleed dhameys ah oo loo siman yahay waana dadaalo soo dhaweynayso beesha caalamka reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Danjire Cali Fiqi ayaa sheegay in maxkamadda caalamiga ICJ ay dib u dhigtay muddo 2 bil ah dacwadda xagga badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya Danjire Cali Fiqi oo u warmay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dacwadda dhageysiga ay bilaaban doonto bisha November 4, 2019 wuxuuna intaa ku daray in ay kalsooni badan ku qabaan natiijada iyo waxa ka soo bixi doona halkaasi safiirka ayaa muujiyay in maxkamadda ICJ ay ka xun tahay go'aanka balse ay ku gaartay codsi ka yimid dowladda Kenya kaasi oo ay ku codsatay in dacwadda dhageysiga dib loo dhigo muddo sanad ah balse maxkamadda aynan ogolaan go'aanka maxkamadda ICJ ayaa ka soo baxay ayaa ka dhigan in maxkamaddu aysan fulin dalabkii dowladda Kenya ee badeena nagu haysata maadaama ayagu ay codsadeen in muddo sanad ah dib looga dhigo oo kaliya 2 bil dib loo dhigay gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha shacabka ahna kusimaha gudoomiyaha xildhibaan Maxamed Cabdulla Faarax Geesay iyo xildhibaan Axmed Ismaaciil oo xubin ka ah guddiga ayaa waxay faahfaahiyeen doorka guddiga mas'uuliyiintani oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay shacabka ku booriyeen in ay muujiyaan kaalintooda ka aadan la shaqeynta laamaha ammaanka xildhibaan Maxamed Cabdulla Faarax Geesay ayaa ugu horeyn bogaadiyay guulaha laga gaaray dacwadaha Soomaaliya ee dhanka badda dib u xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisada Al-Shabaab iyo dadaalada ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto arrimaha dib u heshiisiinta gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdulla Faarax Geesay ayaa xusay in ay kormeer ku sameeyeen hanaanka ay u socdaan howlaha amniga kadibna ay la wadaageen saraakiisha ay quseysay xildhibaan Geesay ayaa soo jeediyay in laamaha ammaanka ay kalsooni dhow la yeeshaan shacabka bulshaduna ay gacan ku siiyaan sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo nabadda dhibaato ku ah xildhibaan Axmed Ismaaciil oo xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha shacabka ayaa sheegay in xukuumadda ay xagga amniga wax badan ka qabatay balse loo baahan
baahan yahay in shacabka ay door muhiim ah ka qaataan maadaama cadowgu rayidka waxyeelanayo uusan ahayn mid dibadda ka yimaada. war ay shaacisay dowladda Zimbabwe ayaa sheegtay in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Mr. Robert Mugabe kaasi oo in muddo ku xanuunsanayay. eheladiisa ayaa warbaahinta u xaqiijiyay war qoraal ah oo bartiisa Twitterka uu soo dhigay. wasiirka waxbarashada Zimbabwe ayuu uga hadlay geerida Mugabe isagoo yiri nabad ku naso Robert Mugabe. madaxweynihii hore ee Zimbabwe oo geeriyooday Mr. Mugabe oo ahaa 35 sano jir wuxuu in muddo la jiifay xanuun hayay iyo sidoo kale gabow isbiirsaday waxaana lagu daweynayay isbitaal ku yaala dalka Singapore halkaasi uu ku geeriyooday oo weligiis caafimaad ahaan u aadi jiray. muddo sanad ka hor ayuu xilka ku wareejiyay Emmerson Mnangagwa kadib markii militariga dalkaasi ay afgambi ku rideen maamulkiisa. Mr. Mugabe waxaa xilka laga qaaday afgambi militari bishii November ee sanadkii 2017 taasi oo soo afjartay xukunkiisa socday in ka badan 30 sano. Robert Mugabe wuxuu dhashay 21 February 1924 xilligaasi oo Zimbabwe loo garanayay magac kale waana shakhsi taariikh weyn ku leh dunida inta badanna lagu yaqaanay hadalla cadcad oo aan lahayn cabsi marka uu la hadlayo siyaasiyiinta reer galbeedka. Mr. Mugabe waxyaabuhu uu soo maray noloshiisa waxaa qayb ka ahayd in uu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dowladdii gumeystaha ahayd sanadkii 1964. sida oo kale door weyn ayuu ka soo qaatay dhismaha dowladnimada iyo hogaaminta dalkaasi balse wuxuu ahaa qof in muddo xilkaasi hayay taasi ay keentay in uu ugu dambeyn xilka laga tuuro. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay dhismayaal cusub ee yeelanayso jaamacadda ummadda qaybteeda Cabdwaaq. dhismahani uu ra'iisul wasaaraha dhagax dhigay ayaa 3 dabaq ka kooban iyo 36 fasal maktabad iyo howl shir lagu qabto. ra'iisul wasaaraha oo wehelinayaan xildhibaano ka tirsan labada gole ayaa reer Cabdwaaq ku amaanay dadaalka ay ku dhisanayaan jaamacadda ummadda si ay uga qayb qaataan horumarinta waxbarashada sare ee dalka. bulshada Soomaaliyeed ayuu ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan dhismaha jaamacadda si ay awood ugu yeelato daboolidda baahida waxbarashada sare ayna u soo saarto aqoon-yahano ka shaqeeya horumarinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ballan qaaday in dowladdu ay gacan weyn ka geysanayso dhamaystirka dhismaha jaamacadda qaybteeda Cabdwaaq oo ah laanta kaliya ay ku leedahay meel bannaanka ka ah caasimadda dalka.